السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ku sugannahay xafiiska Norway, xafiiska UCID ee dalka Norway. waxaana xariga inooga jari doona haddii Ilaahay yiraahdo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga UCID cadaaladda iyo daryeelka aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen. waxaanu ku soo dhaweynaynaa xafiiska isagoo xariga inooga jari doona halkan aynu imika taagannahay oo laga bilaabo oo ah halkii kantiinada ama xafiiskii cuntada u ah oo markay shirarka aanu leenahay aan ku cuntayno. waxaynu ugu xigi doona xafiiskani waxa weeye halkan waa meeting roomkii, waa halka inta badan doodaha cud ay ka dhacaan laanta Norway ku falanqeyna arrimaha iyaga. waxa weeye waa meesha sidan u qalabaysan. insha Allah waxaad xariga inooga jari doontaa inuu ku sii dhawaanana xafiiska la fahantiisii. musharax aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen waxaan kugu soo dhaweynaynaa inaad xariga ka jarto xafiiska UCID ee laanta Norway oo aanu maanta doonaynaa inaad xariga nooga jarto. waa xafiiska aad aragtay qaybaha badan leh. waxaan doonaynaa inaad maanta xariga ka jarto ku soo dhow. sharaf bay tahay runtii inaan xafiiskan quruxda badan leh ee UCID Norway cusub aad samaysateen xariga idinka jiro maanta idinla joogo idinkoo xafiiskan samaystay laanta Norwayna sidii mar kale taa idinku bogaadinaya xafladii iyo soo dhaweyntii iyo kulamadii gaargaarka ah ee la yeelnay baarlamaanka iyo arrimaha dibadda. intaa waxa idin soo raacay inaan halkan aan maanta xafiis qurux badan oo meeting room leh gaara iyo xafiis ba aad maartay aad halkan ka samaysataan. waan idinku bogaadinayaa, waan idinku hambaliyeynayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad u dadaasheen kartida leh rag iyo haweenba. waxaan dileeyahay hambaliyo aan dileeyahay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan aanu maanta joogno bishu tahay 22 bishii saddexaad 2015 waxaan joognaa xafiiska cusub ee UCID ku leedahay wadanka Norway magaalada Oslo. waxaan runtii farxad noo ah iyadoo markii ugu horeysay UCID ay ku yeelatay xafiis Norway ay iyadu iska leedahay oo xafiis u gaar ah UCID. runtii waxa weeyaan mahad Ilaahay oo wax Ilaahay loogu mahad noqo. annagu haddaanu nahay madaxdii UCID anigoo specially iska hadlaya aniga oo ah gudoomiyaha qaaradda Yurub. waxaan u mahadnaqayaa intii ka soo shaqaysay helitaanka xafiiskan aadka u qurux badan leh ee UCID Norway ay samaysatay. waayo waxaan ogahay inaan xisbiyo kale oo Norway jira oo xafiisyo leh aanay jirin ayaan ogahay. waxaan kaloo ogahay inaan Yurub xitaa xafiisyadu ay ku yar yihiin ay leeyihiin asxaabta kale. marka waxaan oran karaa Norway xisbiga UCID waaba ka horeeyaan dadka. waxa weeyaan waa wax runtii lagu farxo oo wax annaguna aanu ku hambalyeynayno. waxaanu leenahay halkaa ka sii wada. waxaan rajaynayaa in halkan noqoto barta lagu kulmo, barta aynu shirarka ku galno insha Allah. oo runtii meelaha fadhiisan jiray imka aynu halkan fadhiisano. ma haddana waxa iska lahayd ciddii ka soo shaqaysay runtii oo aan u malaynay garabka dhalinyarada inay ahaayeen qolooyinka aad uga soo shaqeeyay weliba inkastoo aan UCID Norway kala qaadqaadeen. marka waxaan odhan lahaa hambaliyo UCID Norway macdanta iyo khayraadka tamarta mudane ambassador Maxamed Aadan Liinan. mahadsantahay Siciid. bismillaahir rahmaanir rahiim. sida uu Siciidba ka dhawaajiyay waa wax aad loogu farxay run ahaantii iyadoo aynu maanta xafiiskii UCID fadhino oo halkan aynu ka furray oo uu noqon doono haddii aad bilaa xafiis tahay qof shandad situun baad noqonaysaa adduunka korkiisa. waxa kaa xumaanaysaa howlqabadka. laakiin marka aad leedahay baraad fadhiisato lagaala soo kulmo lagaala soo xidhiidho ku shiri karto waxa dabeetana imanaya horumar shaqo kaasoo UCID keeni doona guulo hor leh. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan u celinayaa run ahaantii mahadnaq weyn dhammaan UCID Norway khaasatan waa maanta bishu 22 tahay xalay toole waxaanu ka nimid guushii ugu weyneyd
taasoo ahayd dayaxdeggii noola mid ahayd ucud oo la mid ahayd berigii dayaxa la tegey adduunyadu way yaabtay oo waxay ahayd wax casri oo cusub oo soo biiray ucud waxaana xalay xaqiiqo noqotay inay ucud dhaqaaqday inay ucud sidaa ay ma garanaysa ay u guulaysan lahayd ay tubtii qaaday xooggeediina xalay waa la arkayey tanna maanta waa guul ka mida guulaha ucud gaadhaysa norway waxaananu aada iyo aad ugu hambalyaynaynaa dhammaan dadkii yurub nooga yimid ee nagala soo qayb qaabtay xafladdii xalay ahayd maantana nala jooga qaar ka mid ihi xafiiskan cusub ee ucud aynu furayno waxaanu jecelahay inaanu wadan yurub u qabsanno iminka ilaa iyo 10 wadan ayaynu xafiisyadayadii ka shaqaynayaan calankii ucud laga ruxayaa isku gurmanaya oo wada tashanaya oo wada hadlaaya taasi waa ta guusha keenaysa waxaan rajaynayaa inaynu ku guulaysano 2015 juun 26keega in uu noqdo guushii ucud soo hoyatay oo aanu maqaranaysaa waddanka hogaamino oo aynu ka badbaadino dhibaatooyinka ummaddeena maanta haysta kuwaas oo saldhiggeedu yahay hogaaminta waddanku marka ay jilicsan tahay hogaaminta waddanku marka aanay xil iska saarin dadka hogaaminta waddanku markay dhegaha ka furaysato baahida dadka ee mararka qaadkoodna laga yaabo in si cunfiya loogu jawaabo dadka waxa ay keenaysaa in aanu guul hor le keenno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhammaantiin dhallinyarada halkaa ka wada waddanku idinkaa u soo hadhaaya sida aad u shaqaynaysaan u shaqeeya. ucud waa xisbigii dhallinyarada, waa xisbigii dumarka, waa xisbigii daryeelka, waa xisbigii danyarta, waa xisbigii macalinka, waa xisbigii ardayga, waa xisbigii dadkao dhan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. bulshaawe Sweden baad nooga timi xatay gudoomiyaha ee dalka Sweden sida dareenkaagu ha garabka dhalinyarta ee Sweden sida dareenkaagu yahay xalay iyo maanta waxa xafiis laga furay magaalada Oslo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. horta marka hore waxaan salaamaya dhammaan mas-uuliyiinta laanta Norway ee xisbiga ucid aad iyo aad ba horta shucuurteedu u kacsan tahay runtii waxaan ahay gudoomiyaha garabka dhalinyarta laanta Sweden. runtii farxadan iyadoo markii hore iigu horeysay farxad laba bishii labaad 15keedii xafiiskii ugu horeeyay qaaradda Yurub aanu ka furnay dalka Sweden muddo bil gudaheed muddo wax ka yar bilna hadda laga furay dalka Norway xafiiskii labaad ee xisbiga ucid ku yeelanayo qaaradda Yurub. horta aad baan u faraxsanahay runtii lama soo koobi karo. waxa taa isii raacda xafladii qiimaha badneed ee xalay iskugu nimi aynu kaga soo qayb galnay intaasoo wadan oo Yurub ah iskugu yimaadeen mas-uuliyiintoodu iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga ucid. horta waxaan leeyahay reer ucid Norway ucid waxaan leeyahay hambalyo waxaan hore loo samayn jirin ayaad samayseen waanaan idinku hambalyeynaynaa guusha aad soo hoyseen. runtii waxaan halkan idinka salaamaya dhammaan mas-uuliyiinta ucid Norway waxaan salaantan idinka sidaa iyadana mid lamida mas-uuliyiinta dalka Sweden dhammaantiinna waa idin salaamaya. waxaan leeyahay dhalinyarta garabka dhalinyarta hawsha intooda badan soo qabatay hawl baa ina sugaysa insha Allah waa inaanu shaqaysano idinkana waa idin salaamaya. bismillaahi raxmaani raxiim. anagu magacaygu yahay Muwarig Yuusuf Axmed maxamed ahna gudoomiye ku-xigeenka garabka dhalinyarada laanta Norway. waxaan aad idinka hawada salaan idinka soo marinayaa anagoo u mahadnaqaya saaxiibkay marna gudoomiyaha Maxamed Shiine oo runtii xafiiskan Norway nagu furay. aad baan u mahadnaqayaa ucid Norway ee wada shaqeynta aan wada shaqeyno. xafladii xalayna si fiican guulo fara badan baa noo soo hoyday kolley warbaahinta laga daawan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada laanta Norway magacayguna yahay Maxamed Axmed Kennedy. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta maanta oo ay bishu tahay 22 iyo shalay oo bishu 21 ahaydba nagala soo qayb galay xafladii weyneyd ee aanu samaynay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid taasoo aynu ku martigelinay dhammaan qaybaha Yurub imaatinkii musharaxa madaxweynaha Jamaal Cali Xuseen. waxaan leeyahay inta meel dheer ka timid iyo inta meel gaaban ka timid waa mahadsantihiin. runtii waxa weeye maanta farxad bay noo tahay. waxaanu muujinay xisbiga ucid oo ay soo xasuusinaysa waqtigii axsaabta la furay uu ahaa koowaad ee waddanka Norway
number 1ka ka galay bool la qaaday ama ray ururin markaa la qaaday oo jaaliyadii berigaa jirtay lagu qaaday number 1 ku noqday maantana waxay cadaynaysay ilaa shalay toole inuu xisbiga u cid yahay ka koowaad ee ma garanaysaa ee xisbiga koowaad ee loogu taageerada badan yahay dalkan ka jira taas annagoo ka dhiiranayna waxaanu samaynay baahi kadib inaanu furno xafiiskan quruxda badan leh ee qaybihiisu badan yihiin annagoo soo qabanqaabinay dhalinyaro ahaan iyo cid ahaanba oo aan ma garanaysaa ay team isku xidhan aanu nahay ilaahayna waa nagu guuleeyey waxaana qabaa sidaa uu Saciid sheegay inaanu afkun baa laga sheegaa la yidhaahdaa xafiis baa halkaa laga furay Yurubta runtii ma jiro xafiisyo la furay oo lacag laga bixiyo oo la fadhiisto oo aan ahayn kaayagan ama kaa kale xisbiga ucid waa kii koowaad ku dhiirada inuu Yurub ka furo waa inaga horeysay laanta Sweden marka waxaan leeyahay waa horumar iyo guul la gaadhay iyo taageerayaasha tirada badan leh ee aan ku talagalano insha Allah waxaan qabaana taa Norway taala inay wadankiina ma garanaysaa sida uu Norway ku yahay inuu wadankiina uu ku yahay insha Allah xisbi loo soo jeestay oo ay tahay Janiskii ma garanaysaa uu ku qabanayay dalka in maanta la taagan yahay oo ay markii uu tahay waxa weeye waa xisbigii dhalinyarada waxaan leenahay dhalinyarada meel walba oo joogtaanba xisbigiinu waa ucid dhammaan reer Somaliland war tijaabinay oo xisbiyadii horeyna soo maray tijaabinay labadan xisbi ee hadda joogana marka si loo eego labadaba waynu tijaabinay oo madaxdooda waynu tijaabinay midna waa madaxweynaha wadanka fadhiya midna waa gudoomiyihii baarlamaanka oo labadooda waynu garananaa hay'adaha hayaan sida yihiin waxaan leenahay war bal markan ucid inta Somaliland mar kale dhexda farta ka qaniini lahayd wax cusub ucid baa jira ucid codka siiya waxaan u mahadnaqayaa saaxiibkay Cabdiwahaab iyo dhammaan shaqaalaweynaha toga heerar meel walba joogaan oo ah shabakad dhexdhexaada oo wararka si saafiya oo lagu kalsoonay oo haboon soo ma garanaysaa soo tabisa waxaana leeyahay saxaafadda Somaliland oo bariyahan aad mooday in cunfigoodu badan yahay war toga heerar ha lagu daydo aad baad u mahadsantahay Cabdiwahaab waanu kaaga mahad celinaa ka soo qaybgalkaaga